رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي، خير الشهور به النفوس تعلقا. ilaahay waxa uu abuuray noolayaal fara badan oo koonkan ku nool, kuwaas oo aynu ognahay in badankoodu ay faa'iido u leeyihiin deegaanka, xitaa haddii ay yihiin ugaarsato sida libaaxa, shabeelka, harimacadka iyo dhurwaaga. haddaba daawade waxa aynu muuqaalkan kaga hadlaynaa xaqiiqooyin ku saabsan waraabaha, kaasi oo ka mid ah ugaarsadayaasha ugu halista badan caalamka. badanaana waxa uu bilaabaa in uu raadsado cunnadiisa habeenkii, waxa uuna ku nool yahay hadhaaga bakhtiga, balse mararka qaar waxa uu soo qabsadaa ugaadha. waxa uuna saacaddii jari karaa xawaare gaadhaya 50 kilomitir, taasi oo u sahlaysa inuu si dhaqso ah u soo qabto xayawaanka uu eryanayo. inkasta oo ay jiraan noocyo kala duwan oo waraabaha ah, haddana ma jiro farqi weyn oo u dhexeeya, laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin xagga dhererka, muuqaalka iyo midabkaba. inkasta oo waraabuhu koox u nool yahay, haddana inta badan keligiis ayaa uu ugaadhsadaa. cunnadiisuna keliya kuma koobno hilibka, balse mararka qaar waxa uu lama huraan u arkaa in uu cuno cayayaanka iyo noocyada midhaha qaarkood. waraabuhu waxa uu ka mid yahay xayawaanka aan la kala garan labkiisa iyo dhiddigiisaba, laakiin waraabaha dhiddig ayaa ka weyn kan lab. waraabaha dhiddig waxa uu caloosha ku qaadaa dhal gaadhaysa 2 ilaa 4 waraabe muddo u dhaxaysa 90 ilaa 110 maalmood. sidoo kale waxa ay ilmaheeda nuujisaa muddo dhan 3 sano, inkastoo ay wax cuni karaan marka ay gaadhaan da'da 5 bilood. waraabaha waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay kuwa ugu axmaqsan xilliga ugaarsiga, maadaama si ka duwan yeyda iyo libaaxyada waxa uu cunaa neefka oo nool. daraasadaha qaarkood ayaa sheegaya in halkii waraabe uu cuni karo cabir ahaan neef lo ah. waraabuhu waxba kama tago ugaarsigiisa si kasta oo uu yahay, maadaama oo uu ka tegayn laf, cidiyo iyo harag midna. waana mid ka mid ah noolayaasha inta badan ka qayb qaata isu dheelitirnaanta iyo ilaalinta deegaanka. maqaarka waraabaha ayaa loo adeegsadaa ka ganacsiga daroogada, maadaama aanay fallaadhaha iskaanku ka gudbayn. waraabuhu waxa uu leeyahay daan adag, kaas oo ka mid ah daamanka ugu xoogga badan caalamka, waxaana uu ku burburin karaa lafaha xayawaanka.